علي جيته wuxuu ka tanaasulay hankiisii Hiiraan State wuxuu ka mid noqon doonaa golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse dagaalku uu hogaamin doono iyo safarka madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tagay Maxaas warbixintan ayaynu ku eegi doonaa ee daawada fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir muuqaalka shargaray soo dad badan u gaara mahadsanid علي جيته cismaan oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan hase ahaatee khilaaf kala dhaxeeyay maamulka Hirshabelle madaxdiisa sare xilka looga qaaday isna sheegay inuu yahay madaxweynaha Hiiraan State ayaa hadda waxa uu ka tanaasulay hankiisii Hiiraan State kadib markii wada hadal uu dhex maray isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horay qadka telefoonka ay ugu wada hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana loo sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo dib u xiraynta dalka sidoo kalena uu ka tanaasulay hankiisa Hiiraan State taas bedelkeeda waxa loo balan qaaday in uu ka mid noqon doono golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse wasiiru dawla ayaa laga dhigi doonaa sidoo kalena waxyaabaha laga hadlo waxa kamid ah hogaaminta dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab gaar ahaan dhanka Hiiraan iyo sidoo kale qaybo kale oo kamid ah dalka علي جيته maadaama isaga iyo reer Hiiraan ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee bilaabay kacdoonka shacab ee la doonayo in dalka looga saaro al-shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qiray shaqadii ay qabteen waxaana weli uu qirsan yahay in reer Hiiraan ay kaalin weyn ku sii yeelan karaan dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la filayaa saacadaha soo aadan in uu gaaro degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa halkaasi uga sii horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Dabageed mas'uuliyiin xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan waxaana la filayaa halkaasi in lagu soo gabagabeeyo khilaafkii u dhaxeeyay madaxda sare ee Hirshabelle iyo sidoo kale hogaamiye علي جيته wuxuu ku dhawaaqi doonaa in uu qaatay go'aanka madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegi doonaa in uu ka tanaasulay Hiiraan State sidoo kalena uu diyaar leeyahay la shaqeynta dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabelle waxyaabaha looga faa'iideysan doono waxa kamid ah dardargelinta iyo isku dubaridka ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale ciidamada deegaanka waxa uu ku biirin doonaa khibradiisa ku aadan muddadii uu dagaalka ku jiray warar kala duwan waxay ka soo baxayaan wasaaradda wasiiru dawlaha uu ka noqon doono hase ahaatee weli si rasmi ah looma cadeen laakiin maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu wada isku keenista siyaasiyiinta iyo waliba cid walba oo hore wax u tabanaysay sababtu waxay tahay waxa uu doonayaa in dalka laga saaro al-shabaab dagaalka ka dhanka al-shabaabna waxa madaxweynaha ay u tahay ahmiyadiisa koobaad oo waxa uu doonayaa in dalka sanadka soo socda gudihiisa looga xoreeyo al-shabaab oo dhan sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intuu ku sugnaa dhul Samareeb gaar ahaan habeenkii xalayto waxa uu la kulmay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage Odawa waxa laga hadlay arrimo ku saabsan gadoodkii dhawaan ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwii ku soo laabtay dhanka gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama Odawa uu isaga u tagay lana hadlay ciidamadaasi kana soo qaaday dalabaad iyo cabasho gaar ah oo ay wateen sidoo kalena waxa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu u yeeray Odawa xilli uu ku sugnaa Muqdisho diyaaradii ka qaadayna ay geysay dhul Samareeb kulankii xalayna waxa uu ahaa mid lagu la fogurayay sidii ciidamada dib u habeen ballaaran la isugu sameyn lahaa howlgalkana uu u noqon lahaa mid ka xoogan kuwii horay u socday al-shabaab qudhoodu waxa ay wadaan isdiyaarin xoogan oo markan waxay ka baqanayaan dagaalka kaliya dhanka galgaduud inaanu noqon oo mudug Shabeellaha Dhexe iyo waliba dhanka Hiiraan dagaal culus ay ka bilowdaan marka maanta madaxweyne Xasan Sheekh uu soo gaaro degmada Maxaas waxa lagu aamin doonaa howlgallo waaweyn oo kama dambeys ah waxaana taasi ay noqon doontaa in al-shabaab ay waayaan meel ay si gaar ah ugu gambadaan maadaama fursadaha ay heli jireen ay tahay in markii deegaan weerar looga qaado ay deegaanada kale gabaad ay ka dhigi jireen haddaba ma kula tahay daawada Cali Jeete haddii wasiiru dawla laga dhigo ama qayb laga dhigo hogaamiyaasha hogaaminaysa dagaalka ka dhanka al-shabaab in isbedel uu keeni karo aragtidaada qaybta hoose committee-ga noogu reeb muuqaalka share garay si dad badan u gaara mahadsanid